danab iyo ciidamada kale ee amniga Soomaaliya ayaa si adag uga shaqeynayay sidii nabadda loo soo celin lahaa isla markaasina meesha looga saari lahaa kuwa nabadda diidan. Waxaan horay u baahinay howlgal guuleystay oo 3 toddobaad ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalka waxaa lagu xoreeyay deegaanada Wardagax, Warciise, Gaaleef, Qoordheere, Jilible, Xagarey iyo Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kumaandooska danab intii howlgalka uu socday waxay gudaha u galeen saldhigyo waaweyn oo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanadan, waxayna halkaasi ku qabteen maleeshiyaad iyo hub ay kooxdu lahayd. Axmed oo ah ku-xigeenka taliyaha ururka 7aad ee howlgalka fuliyay wuxuu sheegay in howlgalka Shabeellaha Dhexe uu ahaa guul weyn oo u soo hooyatay shacabka Soomaaliyeed. guusha aan ka gaarnay waxa waaye guul aad u weyn, waxaana ku jibnaa cadawgii ummadda Soomaaliyeed ee dhiig-yacabka ahay. sidoo kale waxaan ka dilnay tiro maleeshiyaad ah iyo horjoogayaashoodii. sidoo kale waxaan ka furanay hub fara badan. dadka deegaanada dib loo xoreeyay waa ay soo dhaweeyeen tallaabada danab ay ku xoreysay deegaanadooda. nolosha ayaa tartiib ugu soo laabanayso halkan, iyadoo maamulka deegaanadan ay rajeynayaan in ay ka faa'iideystaan fursadan. waxaan dareenay amnigaan dareenay oo aad iyo aadan ugu faraxnay. waxaan dareenay markii eeriyada in maaragtay culeyskii oo ka degayaan dareenay. hadda halahaas waa ugu mahad celinaynaa ciidanka danab beerihii lagu cariirihay ee la lahay wariya beertaan adiga ma iskale, wariya beertaan ma joogsan kartid, ma tabca kartid. cariirigeeda ciidanka naga reebay waa ciidanka danab ma hadan u haynaa. meesha aan joogno nabadgelyo ma haysanin, meesha aan joogno ku hurdimaynin, meesha aan joogno haddii alla yidhi waxaan ku haysanaa ma jirin. ciidanka danab ilaw meel dheer gaarsiiya mahad calankooda kor u dhig. kumaandooska danab si ay u xaqiijiyaan guulihii la gaaray howlgalka gobolka Shabeellaha Dhexe in aysan hal bacaad lagu lisay noqonin, waxay sii wadaan howlgallo amni oo joogto ah oo ay ka sameeyaan deegaano hor leh. al-shabaab howlgalkaas waxaan ku gaarsiinay jab aad u weyn aan ku gaarsiinay, maadaama ay meesha ku waayeen dad ayaga xaggooda muhiim u ahay sida horjoogayaal. hub badanna aan uga furana. howlgalku waxyaabaha ku saabsanaa waxaa ka mid ah in cadawga burburinta cadawga ummadda Soomaaliyeed iyo ka saarista deegaanada ay hadda ku dhuumaalaysanayaan. dib u qabsashada deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa loo arkaa istiraatiijiyad muhiim u ah waajibaadka ciidanka kumaandooska danab oo dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay sidoo kale ballaariyay isku fidinta ay ka wadaan gobolada kale ee dalka ay saldhigyada ku leeyihiin.